waxaan halkan jecelahay inaan ka xuso wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo markii ugu horeysay qabatay ICT conference Somaliland ICT conference shirkaas oo aan isleeyahay Somaliland waxa loo qabay baahi aad iyo aad u ballaaran inaynu Somaliland ahaan isqiimayno heerka tiknoolajiga ama isbeddelka dunida maanta ka dhacaya ee tiknoolajiga iyo Somaliland iyo heerka ay ka marayso iyo inaynu ogaano bal halkaynu gaarsiisanahay tiknoolaji ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo ku hambalyeynaya garashada wanaagsan ee inay ummadda la wadaagto xogta aadka u muhiimka ah shirkan muhiimadaan ku lahayn waxa weeyaan in la helo sectorka IT-ga in kor loo qaado haday tahay private-ka haday tahay public sector-ka shirkadaha dalkuna ku soo bandhigi karaan waxa weeyaan qabiyadoodii korna ugu qaadi karaan heerka ICT-ga dalku marayo adduunweynaha IT wuxuu noqday shayga kaliya hore u dhaqaajin kara bulsho muhiimadda koobaad aan ku lahayn waxa weeyaan in Somaliland ahaan aanay kaliya ku xidhnaan ku tiirsanaan dhaqaalaheedu dekadaha iyo cashuuraha inaga soo gala laakiin aynu inagu wax dibadda u iibgeyno systemyo IT haday noqoto ma product IT وأنتم حنقصوا قريب كنا حفظنا أذكر تروح لبضان Somaliland ICT Conference in 2019 وبرامج أذكر برامج هذه هراء شركات تكنولوجيا ضيّع سوي بدي وعلقوا قرشيني يسدي لو قابين لاشان تسنة صوت Somaliland تكنولوجيا ده دفعنا اللي حقيقي ما أنت شركات الجوب ستورهان ما دام أنا شركات وقتهم كوين لحق إي-كوميرس وحن هالكن كغيب قادرين بس دي أونلاين Somaliland كرلو قال لها يسدي شان تسنة صوت Somaliland تكنولوجيا ده هرمرو قال لها شركات الجوب ستورهان waxaad ogtihiin dhamaan macaamiishaydu inaan qaab online ku soo gaarsiinaa alaabta dhamaan dhulka Soomaalidu degto oo dhan sida Hargeysa Nafurco iyo Boorame sidoo kale Berbera waanu gaarsiinaa meelaha kale Soomaalidu degto sida Muqdisho iyo waanu gaarsiinaa iyaga laftiskooda iyagoo online delivery waxayna customerkooda isticmaalaan Facebook page-kan ku leenahay Facebook-ga Gobstore online shopping sidoo kale website-ka gobstore.com ay isticmaalaan social media kala duwan YouTube-ka iyo kanaalada faraha badan leh shirkan Somaliland ICT conference wuxuu hadafkiisu yahay in isku soo ururiyo sidii kor loogu qaadi lahaa isticmaalka ICT-da runtii waa dadkeenu karti badan bay muujiyeen inta shirkan la joogay wax weeyaan waxay hawlabuur badan bay soo bandhigeen dad badan oo aqoonteeda la jooga shirkado badan oo waxyaabo badan oo guriyihii hore wadanka gudihiisa laga heli jirin maanta qabanaya baa jira runtii waxa weeyaan shirkani wuxuu dibafur u noqday dibooyinka dadka tiknoolajiga isticmaala shirkadaha iyo shakhsiyaadka gaarka ah runtii aad baan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo shirkan ka qayb qaadatay sidoo kale iyadna waxa mahadnaq mudan wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiga oo runtii ah shakhsiga hogaamintan wanaagsan maanta la arkay natiijadeediisa leh sidoo kalena agaasimaha guud ee wasaaradda Jinaacada Daahir Cabdilaahi oo isaguna agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiga oo isaguna shakhsi professional ICT-ga inkastoo labadooduba yihiin hogaamintii wanaagsaneyd ee laga dhaxlay waa taa maanta natiijadeeda la arkayo. In fact, I was told that here in Somaliland you have 90% of mobile money using SAD and IDAHAB technologies. For example, in Philippines we have 10% or less than. qorshaha lagu horumarin lahaa ICT Somaliland waxa la yiraahdaa Somaliland ICT strategic plan taas oo badan ka tali doonta horumarka dhaqaale ee dalkiisa suuqada koowaad qodobka labaad waxa weeye in Somaliland noqoto mari teknoolojiyada oo gobolka u adeega waxa la yiraahdaa technology hub sidaas darteed in la asaaso xarunta lagu ICT Innovation and Entrepreneurship Center